kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareey cid walba muuqaalka la gareey subhana allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuure leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subhanahu wa ta'ala aan awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkan ilaahay awlaad baari hasi inta gurdoonkana guul wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna hasi qof walba muuqaalka sheerta ku qabta la gareeyana waxa rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeena in maal adduunyo ay safileen inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee bawda ربي سبحانه وتعالى وكو عزوما جنة الفردوس الأعلى حاسدك وعلى النهي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود بين يهوق غساره وعربي سبحانه وتعالى عن كبر إن أنت حنوصل إنه إلهي حنونك وكدل قاده ومد صومالي ميل بيجوكتنا إلهي سبحانه وتعالى قرقار كيسي النسر كيسي هاسيو waxaan eegi doonaa warbixin aad u naxdin badan qof walba damiir lehna uu ka naxayo taas oo ka dhacday degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kadib markii xalay gabar lagu magacaabay Allah u naxariistay Xamdi ay ku dileen dhalinyaro la sheegay inay kufsadeen dabadeedna dabaq ay ka soo tuureen Xamdi Maxamed Faarax ayaa goor dhaweed lagu aasay qubuuro ku yaal degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in xalay dhalinyaro tiro badan ay ku kufsadeen degmada Waaberi gaar ahaan agaarka Tarabiyaana hotel ku yaal dabadeedna ay ka soo tuureen dabaq dhowr biyaana ah waxaana wararka intaas ay sii raacinayaan in ciidamada booliska ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay xireen tiro dhalinyaro ah oo lagu tuhunsan yahay inay geysteen falkan wuxuushnimada ah ee lagu farxumeeyay Xamdi Maxamed Faarax kadibna dabaqa laga soo tuuray oo nafteeda la dhaafsiiyay Xamdi waxay ka mid ahayd gabdhaha dhalinyarada ee ku dhaqan magaalada Muqdisho waxayna sanadkan ka baxday dugsiga sare ayadoona ka mid ahayd ardaydii gashay imtixaanaadka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya waxaana Xamdi la sheegay inay dhameysay dugsiga Najax ee ku yaal gobolka Banaadir Xamdi Allah u naxariistay waxa si arxan darraha u dilay kuwa sheeganaya inay yihiin rag Soomaaliyeed isla markaana xumeynaya magaca iyo suuradda ragga muslimiinta ee Soomaalida Xamdi Allah u naxariistay waxay hadda sugaysaa cadaalad waana marxuumad cadaalad suga ah waxaana Ilaahi subhanahu wa ta'ala iyo waliba ummadda Soomaaliyeed ba laga fadhiyaa inay ka dhiidhiyaan si cadaalad ay u hesho marxuumadan la dilay qoyskeedana cadaalad ay u helaan Xamdi waxa si xun ayaa loo kufsaday dabadeedna dabaq ay ka soo tuureen kooxdan wali Soomaaliya waxa ka jira tacadiyada ay geysanayaan kuwa sheeganaya inay yihiin rag Soomaaliyeed laakiin aanu ahayn rag kuwaas oo lagu tilmaami karay inay yihiin wuxuush xumeynaya magaca ragga Soomaalida waxayna tacadiye u geysanayaan gabdhaha Soomaaliyeed waxay hilmaamsan yihiin in gabar ay la dhalatay ay dhashay ayna u dhaxayaan waxayna ay geysanayaan mararka qaar markaad fiirisid wax laga naxo isla markaana aan qaadan karin damiirka ummadda Soomaaliyeed iyo waliba damiirka ummadda muslimiinta ah waxaana sidoo kale ay ku dhaqmayaan waxaan lagu dhaqmin oo uusan ku dhaqmin qof rag sheeganaya dhacdadan Xamdi ku dhacday waa dhacdo aad u xanuun badan inta badanna Muqdisho kama dhacdo waana wax ku cusub in gabar la kufsado si jamac ah oo group ah loo kufsado dabadeedna laga soo tuuro dabaq dhowr biyaana ah kooxdan falkan geysatay waa koox arxan laabiyaal ah oo xumeynaya magaca ragga Soomaaliyeed waxaana waajib ka saaran dhammaan ragga Soomaaliyeed inay ka dhidhiyaan tacadiga loo geystay gabadhan Soomaaliyeed ee 20 sano jirka ah ka baxday dugsiga sare ee xalay in la kufsaday dabaqa laga soo tuuray waana muhiim qoyska Xamdi inay helaan cadaalad dhammaanteen aan ka qayb qaadano raadinta cadaalad qoyska Xamdi laga dilay oo hadda tabaya cadaalad isla markaana ka sugaya hay'adaha garsoorka in cadaaladda la marsiyo kooxdan arxanlaabayaasha ah ee bilaabay in gabdhaha ay farxumeeyaan ayna dilaan ama dabaq ay ka soo tuuraan dhammaantiin muuqaalka si shar gareeya si cadaalad ay u helaan qoyska Xamdi